waxaan maanta shirkan jaraa'id u qabtay inaan ummadda Soomaaliyeed dhammaantood Puntland kaliya maaha u sheego inaan aad iyo aad uga xumahay xalay magaalada Garowe oo ra'iisul wasaarihii Soomaaliya iyo madaxweynihii Puntland iyo qayb beesha caalamka ka mid ah wakiilka xogayaha guud qaramada midoobay iyo gudoomiyaha golaha wasiirada igad safiirka wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia iyo EU dowladaha Europe oo midoobay safiirkoodii iyo xafiisyada igada secretary caamka ay ku jiro ay joogeen xalay halkaas in lagu saxeexay in dowladda Puntland ay aqbashay in ay qaadato nidaamkii faasidka ahaa oo ummadda kala qaybiyey oo qabaayil kala tuuray oo magaceedu xumeeyey oo ilaa muddo lagu soo dhaqmayo lagu khasaaray oo Puntland kaliya awal ay diidanayd oo ummadda Soomaaliyeed inteeda kale ay Puntland ka dhursugaysay in halkaa lagu saxeexo inaan maanta ummadda Soomaaliyeed u sheego inaan aad uga xumahay sidaan uga soo horjeedina wala uga soo horjeedo laakiin aanan cod ku lahayn oo waxba ka qaban karin aad baan uga xumaa intaa haddaan sheego wax yar haddaan dib ugu noqdo taariikhdaas waxaan rabaa inaan ciddii aan ka warhayn u sheego in ilaa shirkii 1991 Djibouti lagu qabtay 15 Juulaay ilaa 2020 ay shirgudoon ka ahaayeen madaxdii arrimaha Soomaaliya maamuli jiray dowladda shibilka ah ee dimuqraadiga ahayd Allah u naxariistay kulligood waa dhinteen aadan Cabdulla Cusmaan Sheekh Mukhtaar ra'iisul baarlamaankii ahaa iyo madaxweynihii hore Cabdirasaaq Xaaji Xuseen prime ministerkii hore Maxamed Ibraahim Cigaal prime ministerkii ka dameeyay ay wada joogeen oo saxiixeen in Soomaaliya ay ku heshiisay dadkaas ay Soomaaliya u garteen nidaamkii hore inaan lagu dhaqmi karin ee nidaam federaal la qaato oo aan hayo wali dokumentigaas dabadeedna intii ka dameysay shir kasta oo la isugu tago dowladda ka dhalatay aan joogay oo ka mid yahay kii Carte kii Embagati iyo Eldoret oo Kenya oo markii u dameeyay draft dastuuriga ku soo baxay in nidaamka federaalka ka la qaato oo yahay laguna doortay madaxweyne Abdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay nidaamkaas aan weligay daba joognay laakiin nidaam faasidka ah oo dhinac socday ilaa shirkii Djibouti ana aan markasta ka hortaagnaa ama layga bato ama aan markaas in door aan ahaano laakiin markasta layga badanayay hadeerna intii aan maamulka Puntland hayay alxamdulilaahi rabbil caalamiin 2012 February Garowe 2 lagu go'aamiyay inaan nidaamka dib dambe loogu noqon doonin oo lagu heshiiyay aqalka sareena inuu degaan noqdo aqalka dameena aqalka hoosena oo markaan noqdo 4 sano oo hadda dhamaanaysa bishan August September awalkeeda dhamaanaysa inuu halkan ugu dameeyo nidaamkaas aan rajo weyn ka qabnay inuu haro in xalay halka dib loogu noqday iyadoo Soomaaliya oo dhan Puntland sugaysay ra'iisul wasaaraha oo Soomaaliya reer Puntland ahaa isaguna halkaas oo gudoonkaas wax ka gaaray isaga iyo madaxweynaha Puntland labaduba iyadoo reer Puntland ay diideen aniguna intii aan hadda soo noqday oo aan ka soo noqday ilaa bishii Juulaay aan ka wada shaqeynay oo aan isla waafaqsanayn dadka reer Puntland ay wada diideen golayaasha dawladuna ay diideen ama ha ahaadeen kuwa golaha dawladda ama ha ahaadeen kuwa baarlamaanka iyo inta qaybood oo mujtamac u qaybsamo aniguna aan ku jiro anigoo siyaasi hore oo way araga ah oo Puntland hawl weyn ka soo qabtay welina caawinayay dawladda la og yahay maalinta xilka ku wareejiyay natiijadu say ahayd ilaa waagaas waxaan kordhiyo mooyee aan haba yaraatay waxba u dhimin wax mucaaradan aan ku noqon haddeena maanta aanan leeyahay mucaarad baan ku ahay anigu aan lahayn laakiin waxa dhacay aan ka xumahay oo sheegayo intaas haddii aan intaa ka dhigo hordhac waad ogtihiin dawladda hadda xamar joogta inay waxba dalkan ka qaban nidaamka federaalka lagu aaminay la dirirtay ilaa haddana uu qabyo yahay waqtigiina ka dhamaaday aan laga fulayn iyaduna ay hormuud ka ahayd oo ay ka shaqeynaysay in nidaamka dib loogu noqdo isagoo madaxweynaha xilka maanta haya
oo isku halaynaya madaxda dowladaha ka midka ah dowladda federaalka ah inay gacan ku siiyaan inuu xilka kusoo noqdo oo Soomaaliya la sii dego oo dhulka la galo nidaamka federaalka halkaa ku baaba'o wax u hagaagaan ay jirin caruurtoodii iyo dadkoodiina ay gacanta u galeen nimankaa la yaqaan oo halkaan duulaanka kusoo qaaday maanta welina xamar shalay oo ugu dambeysay oo 4.5 la saxiixayay madaxtooyada ay ku dhacayeen hobiyaal iyo villa Soomaaliya ay ku dhacayeen in wax dambe laga suugi karaa ayaan jirin intaas oo dhan markaan garowsaday ogaahayna haloosha ummadda Soomaaliyeed wax garadkeedii iyo inta aan isleeyahay ama ila soo xiriireysay ama aan wada shaqeynayno nidaamka maanta naga warsugaysay waxaan go'aansaday in aanan ka aamusin maanta aan shirkaan jaraa'id qabto baan go'aansaday waxaa taayay weheliya waxaan ku talagelayay inaan wixii Soomaaliya wax gaarsiin kara gacan aan siiyo anoo uga faa'iideynay way aragnimadayda maamul aqoontayda iyo aqoontayda diineed intaba inaan gacan ku siiyo laakiin xalay ragga gabyaa waxay yiraahdaan markay gabyayaan xalay ma anseexano waxba calooshadii soo rogmatay xagga iyo arar ka dhigta anuu hadda tixgabay raacin maayo laakiin waxaan raacinayaa in allaha laa yadiicu ajra almuxsiniin waxaan isku aqaanaa ilaahayna hortiis aan anigu nafteyda marag uga ahay in aanan weligay laba arrimood hadda ii silmaan aanan tan xumun raacin ee tan fiican aan raaco anoo taas ka duulaya ilaahayna ku kalsoon waxaan go'aansaday inaan maanta inii sheego aad baahisaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan u sheegayaa meel kasta ha joogtee waxa kaliya aan kaga dabatay karaa arrintaas inay tahay intaan nool inaanan ka harin in aan si kastaba ha ku yimaadeen dadka la soo xuli doono nidaamkan hadda xalal go'aansaday ugu dambeyntiisii ku imaanaya inaan nahay murashax u taagan madaxweynaha dowladda Soomaaliyeed ee 2016 inaan nahay taasaan isleeyahay waad ka qaban karaysaa haddii ilaahay idmo oo aan ku guuleysto ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa anigu hadda maanta programka halka ka akhriyo maayo laakiin waxaan u sheegayaa inaan si daacad ugu shaqeyn doono nidaamka federaalka hirgelin doono haddii ilaahay inuu ila qabto raggeedana aan u xulan karayo aan nabadii sidii loogu heshiin lahaa loo soo dabaali lahaa dalka Soomaaliyeedna aan ka shaqeyn doono sidaan Puntland uga shaqeeyay markaan joogay had intaa tii ka dambeysana waqtiga la qabtay haddaan ilaahay nafta igu sino oo aniga aan madax ka noqdo inaan doorasho xaq ah oo lagu kalsoonaan karo oo ummadda Soomaaliyeed iska arki karo transparent waxay gaalada u yaqaaneen sidii tii 8 January 2014 aan Puntland ka dhigay waad ogtihiin inaan oran karay hal lagu noqdo halka cod oo qaldamay oo aan hubo inuu anaga naga qaldamay aan oran karay inaan nidaamkaas kala gaarsiin karo haddii ilaahay idmo aan ahay nin wadaada oo aan maanta qolada lagu tiri karin oo aan u suntanayn laakiin ku go'aansan inaan shariicada islaamka ummadda ku dhaqo sidaasaan isu sharaxayaa nidaamkaasna aan dal ka saaro oo aan gaarsiiyo inuu dadku si xora doorashada u galaan mustaqbalka soo socda oo dhow intaasaan inii sheegaya maanta tafaasiil kale raacin mayo ummadda Soomaaliyeed ha ogaato ciddii saas jecel oo rabtana taageeraan ka sugayaa intii wax garanayso maanta qaangaar ama cod bixin kale gooy dibadba ha joogeen iyo wixii ay ka oran lahaayeen ay ummadda Soomaaliyeed inta kale maqashiyaan waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم. مدحويني waa maxamed كوب يا مجرم يا بسم الله الرحمن الرحيم. مدحويني waa maxamed Cabdullaahi Kooshin waxaan ka socdaa raadiyo dirita shalay waxaa jiray oo saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Xasan Sheekh oo heshiiska Garowe looga hadlay madaxweynaha Puntland xalay wuxuu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uusan raalli ka ahayn heshiiskii la gaaray adiga siyaasi ahaan aqoonyahan ahaan madaxweyne ahaan ma ku muuqataa heshiiska Garowe xalay lagu gaaray in madaxda federaalka laftirkoodu ay ku kala aragti duwan yihiin sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha may Xasan Sheekh war dhacu helay wuxuuna ka helay madaxdii halkan ku shiraysay oo Soomaalida ah ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Puntland sidaan rumaysnahay isaguna uu sheegay marka isaga qalad siyaasadeed galay oo ka hor dhacay Cabdiwelina iyo Cumar Cabdirashiidna waxa u banaanay mar hadduu saa sameeyay inay dhinaca kale aadaan oo yiraahdaan 4.5 waa la tuuray maxaa uga hor dhacaysa madaxweyne maxamed Saciid Yuusuf telefishinkeeda caddeysay waxa sheegtay tan shaqada ka kamaqtay Soomaaliya 2016
haddii aad xilkaas ku guulaysatay ma ballan qaadaysaa nidaamkan 4.5 ee adiga hadda aad diidan tahay inaan 2020 awsan mar kale hadalayntu soo noqon Soomaaliya doorasho wixii soo aad alla og laakiin khudbadeeda baan ku daray presentationka baan ku daray ilaa waxaan la dirirayay baan ku yiri intii aan siyaasadda ku jiro dhan baan la dirirayay